سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku bilaabayaa magaca Ilaahay ee naxariista guud iyo midda gaar ahaaneedba naxariista. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ma ogtahay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sida rabbiga u galay colkii maroodiga watay ee doonaya inay Kacbada dumiyaan. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ miyuusan Ilaahay ka yeelin dhagartoodii mid lagu khasaaray oo lagu halaagsamay. وأرسل عليهم طيرا أبابيل oo miyuusan ku dirin korkooda shimbiro koox ah ترميهم بحجارة من سجيل kuna ganaysa dhagaxyo dhoobe la gubay ah. فجعلهم كعصف مأكول. markaasuu eebbe ka yeelay bal la daaqay sidiisoo kale. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سورة الفيل ومكية 5 آيات ayayna ka kooban tahay waana suuradda 105 ee Qur'aanka Kariimka. suuratul fiil waxay ka warramay arrin dhacday nabiga dhalashadiisii wax yar ka hor sallallahu alayhi wa sallam taasoo ah in gaal xabashi ah ka soo duulay Yemen si uu dumiyo Kacbada sharafta leh. markuu Maka ku soo dhawaaday ayaa eebbe ku sii daayay shimbiro dhagaxyo ku tuuri colkiina sidaas ayuu ku jabay. Kacbadiina sidaas ayaa Ilaahay jalla jalaaluhu ku ammaan geliyay. arrintaasi yaab male maxaa yeelay Allah jalla jalaaluhu ala kulli shay'in qadiir. إلهي وحول بايو أودا وما يعلم جنود ربك إلا هو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.